isku dhaca labada boqor ee ugu khatarta badan inta uu noole Ilaahay uumay waa boqorka duurjoogta libaaxa iyo boqorka xamaaratada maska kobraha. labadooduba waa ugaarsatada gaadmada wax ku dila, balse markii labadan boqor ee khatarta badan iska hor yimaadaan, libaaxu waxa uu arkaa kobraha inuu yahay qadadiisa. maska kobraha ah waa dilaaga aamusan kaasoo wax ku ugaarsada gaadmada. maskan ayaa leh sunta u shaqeysa degdegta taasoo weerarta nidaamka neefsiga ee nooleyaasha. marka uu hal qaniyo oo kaliya ku dhufto, waxay si toos ah u abaartaa nidaamka nerve systemka ama neerfaha. murqaha neefsigu markay joogtaan, taasi waxay sababtaa daqiiqado gudahood dhimasho. marka uu madaxiisa kor u qaado oo qoortiisa ballaariyo, waa digniin cad oo ah haddii aad tallaabo xaggayga u soo qaato, waxaad iga mudan doontaa weerar ilbiriqsiyo gudahooda. isagoo 1 mitir kor u boodaya, isla markaana qaniinti kaga dhufanaya qofka 1 mitir